halkan waxaa ku qoran inta shay inay bixiyaan safaaradaha iyo wasaaradda inay kharashaadka san ka bixiso wasaaradda 3 sano la soo dhaafane mishaar mee wax kale $1 lama qaadeen wasaaradda safaaradaha wasiir waxaa rabaa arintaas maxaa ka damacsan tahay aana ku qorsheysan hay-adda nabad sugidda qaranka 2020 miisaaniyaddan waxaa u qorneyd 18 milyan iyo xoogaa 2022 waxaa u qoran miisaaniyaddan 17 marka waxaan rabnaa inaan ogaano maadaama ay noo tahay aad muhiim inuu hay-adda nabad sugidda ay noo tahay hay-ad muhiima aana ognahay waxyaalaha ay dalka u qabato maxaa sanadkan hoos u dhac u keenay miisaaniyaddan hadda 6 bilood oo isticmaalkeedii dhammaaday aysan la ansixinin September ay soo noqonay ama October ay soo noqonay markaas si sax ah looga doodo inta meelood oo la rabo in dib loo fiiriyana hal la fiiriyo sida uu qabo qodobka 4aad ee xeerka PFM-ka waxa uu qabaa haddii baarlamaanka xiran yahay in uu xafiiska hantidhowrka ma ka soo diiwaan gelisay deynta aan markaa qaadanayseen caddaynsa ma haysaa waad noo sheegaysid marka annaga iyo IMF-ta iyo Central Bank-ka ayaa discussion galay sawirka misterska markaa lagu jiray iyadoo inaas xisaab ay tahay anu waxaan ku dacweeyay waxa weeye gudoomiye waxaan ku dacweeyay waxa weeye marka xildhibaan ma jirin iyo meel la fariista ma jirin wadankana la samata bixinay waxaana lagu talagalay in maanta la idin kale maanta fadhigii ugu horeeya oo budgetka la soo geliyo sidaas horta lagu talagalay waa la audit garan karaa waana la audit gareeyay lacagtaas meesha taala very clear weeye marka waxaan idinka codsanayaa arrinta SDR-ku waa sidaas waa lacag aynu bixin doono laakiin aan majority lahayn waxaa jiray baarlamaankii 9aad oo runtii rag badan aan ku soo laabanin oo maxay ahayd banaanka joogaan waagi miisaaniyadii 17 waa ku jirtay miisaaniyadooda mashaarka ka maqnaa waxaa ku jiray sidoo kale 18kii 19kii dhowr bilood dhiibay waxaan u maleynayaa 2 bilood inay xirsan tahay dad rag oo soo shaqeeyay xaquuq bislaatay waaye marka waxay xaq u leeyihiin runtii in la siiyo ilaa ay shalay miisaaniyadu waa laga doodayay hal qof oo soo qaadi ma laha akhrinta labaad aan ku jirnaa akhrinta labaad doodeedu waxa weeyaan waa in details loo galo miisaaniyada loo galo waa in si fiican looga doodo kadibna waa in guddigu ayagoo wax qorteen ay haystaan ay ku soo daraan ay ku biiriyaan waaye laakiin haddii la joojiyo doodii laga xiro muxuu guddigu wax ku soo dhisayaa guddigu ma wuu soo sheegay fikradooda wuuna noo soo gudbiyey xildhibaanada xaqooda hala siiya hana la galaan qabaa doodaas si fiican ha loo dharjiyo yaana laga daayo miisaaniyadda 5 sano la soo dhaafaan degdeg iyo cirkaa bari soo dumayo kuwadna cirkaa soo dumayda miisaaniyadda laga daayo waxaan rabaa arrintan in wuxuu ahaa ii sheeg loo dhiibo guddigii ku meel gaarka ahaa barnaamijka aan laga soo xirtaan miisaaniyaddan la miisaaniyadoonkii la soo dhaafay 4 san xisaabirkii la isku haystay wasaaradana sheegtay aran xildhibaanadii golaha maaragtay baarlamaanka 10aad ku jireen cadeeyeen in maaragtay xisaabir la sameeyay jirin ay sheegeen taas shalay ra'yigii la soo jeediyay baan qaadanay waxaan sameynaynaa kaas guddi u magacaabnay waxaan aba guddi magaciidooda inaan sheegno aad la dhageysataan si aad u ogaataan waxaan u magacaabnay 7 xildhibaan oo isku jira xildhibaan Saciid Maxamed Cali xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Cadow xildhibaan Maxamuud Beene xildhibaan Saadiq Abdullaahi Cabdi xildhibaan Cabdiqafaar Hangi intaas waa xildhibaanada golaha shacabka senator Cabdixakiim Macalin senator Saciid Awki todobadaas xildhibaan waxaan u magacaabnay inay ka soo baarandegaan arrimihii saafiridkii qaladaadka wixii saxanaa wixii maaragtay yani ay soo arkaan maaragtay ay soo ogaadaan in ay golaha ku soo celiyaan waxaan ku wareejin doonaa guddigii maaliyadda aan u xisaabnay adhaho kumitiga kumeel gaarka ahaa ayaan ku wareejinaynaa ayaga oo maaragtay wasiirka iyo wixii maaragtay soo kordhay la wadaagi doono marka berrito hadduu ilaaha yidhaahdo
waqti inkastoo iska gaaban yahay laakiin berri aan ka sugaynaa inay jawaabta nagu soo celiyaan marka fadhigana maanta waa noo xiran yahay waa noo berri insha allah